toddoba arrimood oo dila jacaylka ragga iyo dumarka. Haween badan ayaa ku jahwareersan isbeddelka dhanka jacaylka ee ku yimaada lamaanahooda oo horey ugu wanaagsanaa. Haddaba channelka Hargal TV wuxuu halkan idinkugu soo gudbinayaa 7 waxyaabood oo dila jacaylka. 1. Dhaawicida dareemaha. Jees-jeeska waa arrin aad u xun, waxa ayna dhalisaa nacayb. Haddii tani timaado, waxa uu wadada u furayaa dood iyo isfaham la'aan. Ugu dambeyn, kalgacaylkii ayuu dilayaa. 2. Ka mashquulida joogtada ah. In haweeneyda ninkeeda ay kaga mashquusho guriga ama banaanka, taasi cidlo ayay ninka dareensiinaysaa. Waxaana ugu daran haddii ninka uusan haysan waxyaabo uu ku mashquulo. 3. Maseerka badan ama hinaasaha. Haddii hinaasaha uu soo dhaafo xadkiisa, waxa ay taasi halis gelinaysaa xiriirkii qoyska, waxa ayna labada lamaane ku leexinaysaa wadooyin qaloocan. Waana arrin aad u halis badan. Qodobka 4. Qaadashada talooyinka haweenka kale. In haweeneydu dhageysato dhammaan talooyinka kale ee saaxiibadeeda oo ay qaadato, iyaduna xiriirkii nolosha ayay tashwiish ku furaysaa. Ee gabar yahay, isku day in aad ninkaaga adigu uun fahamto, waayo nin waliba dabeecad ayuu leeyahay. 5. In aadan qadarin. Waxaa laga yaabaa in ninkaaga uu leeyahay hami iyo riyooyin ah in uu gaaro, waxa uuna u baahan yahay taageero. Haddaadan sidaas sameyn, waxa uu ninkaaga u turjumanayaa in aadan u qadarinaynin sidii loo baahnaa, xitaa haddii uu kaa waayo erayo dhiirigelin ah. Tani waxa ay noqonaysaa nooc ka mid ah niyad-jabka. Waxa uuna isweydiinayaa su'aalo badan ee ninkaaga qadari oo dhiirigeli. Lambar 6. Hogaamin iyo mayal adeegnimo. Haween badan ayaa aaminsan in ninka ay ka dhigtaan mid ay gacanta ku hayaan, taasina ay siinayso deganaan ah dhanka nolosha oo go'aamo adag kaga soo horjeesan karaan. Ogow, ragga kama helaan haweenka xukunka badan ee nolosha, waa isfaham iyo wada tashi. Lambar 7. Haddii ninku dareemo in xaaskiisa ay dacwo badan tahay kana hadlayso dhibaatooyin iyadu ay xalin karto, taasi ninka waxay ku qasbaysaa in uu maciinbido aamusnaanta si uu u nafiso. Ninkana uma dulqaadan karo haweeneyda noocaasi ah.